ehelada allaha u naxariistay macallin cabdiraxmaan macallow oo maalmo ka hor lagu dilay iskuul ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya ka dalbanayaan in uu helo marxuum cabdiraxmaan allaha u naxariistay cadaalad uguna baaqay laamaha ammaanka inay dardargeliyaan sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglihii dilay macallin cabdiraxmaan dhinaca kale waxay ugu baaqeen dhammaan xarumaha waxbarasho ee gobolka Banaadir inay ka dhiidhiyaan falkaasi gurracan ee lagu dilay allaha u naxariistay macallin cabdiraxmaan macallow wiilka cabdiraxmaan macallow abiikar adeerkiisaan ahay waxaan codsanaynaa horena u codsannay mar labaad mar saddexaad inta ay qusayso waxaan ka codsanaynaa qof walba oo quseeya amnigaas in uu ninkaas gacan ku dhiiglaha ay noo soo qabtaan ma la duugayo insha allahu tacaala ilaa laga keeno gacan ku dhiiglaha baqiil gacanta laga gooyo weeyaan qofka salliga nebiga arka ee ka taga haddana waxaan ka codsanaynaa dowladda oo dhan laamaha dowladda hay'adaha intay ka kooban yihiin waxaan ka codsanaynaa in ay haddaba dadaal waa wadaan dadaalka ay kordhiyaan wasaaradda waxbarashada dhammaan jaamacadaha kulli intay kulmeen ay go'aan ka qaateen oo 3 biri la kala diray waxaan ka codsanaynaa 3 biri maana bil in la kala diray ama isbuuc in la kala diray ama 2 isbuuc la kala diray ka codsan inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaan halkan tacsi tiiraanyale ooga diraynaa walaalkan ay odayaashu kor ku soo xuseen cabdiraxmaan macallow rabbi waxaan ka baryaynaa naxariista janno inuu asaga ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan oo annagu ka mid nahay allah naga siiyo intaa ka bacdi waxaa malagii baa galay oo uu dhintay ninkaas qadartiisa ku qornayd inuu dhinto oo ninka ilaahay ku sababo waxaa kaliya oon codsanaynaa annagoo aad iyo aad uga xun geerida foosha xun waxaan codsanaynaa oon cod dheer iyo cod gaabanba ku codsanaynaa gacan ku dhiiglaha in la soo qabto oo uu helo cadaalad cabdiraxmaan walaalkeen waxaan aad ugu xunnahay dil waa dhacaa dilkana waxaa waaye qadar alle ku yimaadaa laakiin ninkii ardayga ahaa ee shalay asaga wax uu soo baray maanta inuu gacantiisa ku dilo macallinkiisii wax aad looga xumaado waayo intaas oo dhibaato ahna waxa uu ku dhacay waxaa waaye macallinkii iskuulka dhigayay ninkii 18 sano iskoolkaas ka shaqaynayay macallin ahaa dad wax barayay xisaab badnaa wanaag badnaa ayuu ahaa macallin macallow waxaa waaye intaas markay tahay ninka intaas uu ku dadaalayay oo ardaydii uu wax soo barayay maanta in gacantoodii uu ka baxay ardaydii aadaan ugu xunnahay baxda waxbarashadan waxaan u sheegaynaa dadaalka ay wadaan inay sii wadaan waxaa kale cadaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo cadaaladda laamaha cadaaladda waxaan leenahay cadaalad ha muuqato ninkii ninkaas dilay marxuumkaas dhibka u geystay gacanta waa inuu soo galaa codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo hala soo qabto marxuumkaas ninka dhibka u geysta la soo qabto waxaa waaye macallin waaye ninka dadka jaaliga ka saaray waaye dhibaatada ka bixinaya waaye macallin inta aan la dilin uu ku jiraa wuxuu bilmageyadu ka mid yahay in la dilaa sax maaha waxaan u sheegaynaa yaan dadka xasaadiisa la kicinin waxaan leenahay dowladdu waxaan u sheegaynaa inay si degdeg ah ku soo qabato ninkaas fal dambiyeedkaas geystay waxaan maqlaynaa in 2 qof oo nin oday yahay waayeel ah iyo nin macna ma taqaanaa iskuulka waalidiinka aan la soo qabtay kuwii kalena ay baxsadeen la leeyahay marka waa dhintay iyo waa baxsaday wax shaqaynaya ma aha qof in la dilaaho la yiraahdo waa baxsaday cadaalad ma aha cadaalad ha shaqayso hala soo qabto gacan ku dhiiglihii macallinkaas dilaa soo qabto intaasaan codsanaynaa marxuumkii geeriyooday ee lagu dilay dugsiga hoose dhexe sare ee maxamed xirsi nuur siidi cabdiraxmaan macallow abiikar ayaan ugu tacsiyadaynaynaa tacsiya tiraanyale eeladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday tacsiya kadib waxaan aada ugu mataqaanaa xumaanay nabadoonadoodii waxaan aada ugu xumaanay dilkaas foosha xun ee dhacay ka dhacayna iskuulkaas dilkaas dil minallaahi waa ka yimaadaa balse laakiin waa dil aada u foolxun buu noqday marka halkaas ayaan mataqaanaa ugu tacsiyadaynaynaa walaalaha wiilkaasi ka baxay
cabdi fitaax tawakal telefishinka caalamiga S24 gobolka Shabeellaha Hoose.